Soomaaliya hal saaro wixii Soomaaliya waa kuwii ku nala dhacay miyaa joogtay idinku totally khalad baan u arkaa because waxa weeyaan meelaan Soomaaliland iyo dadkeedu qaxoontini ku joogin ma jiro السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جود هم بخيار تقييمها لنا دعونا يساي كسر دوّادة برامج كريجي تدوينها وتدباش كنا كسر قادن دونه مجالات الله سعانه ده حرنت قبل كسول واحد حكومة الصومال دوان كسرته ذاتك جسوا شيء جد يعني هان كفرت الدل كالصوماليا لوح إنه شعب كالصومال لهم وحكوا يدين دون أسده وركتيده دوار كان أرنتاسي يقعد ضدك وينو أرنتاسي كالين هذا اللي هو حكم منها waxaan arkaa anigu dawladdu wadankeeda ka masuula marka cid ka saaraysi cid soo galisay cid degaysa masuuliyadda dawladda weeye laakiin waxaan ka soo horjeedaa qaabkii loo maray dawladdu uma marin saanu arkaa anigu qaab masuuliyada waxay dadkan ogeysiis la siiyo meheraday leeyihiin ganacsi bay lahaayeen guriyay lahaayeen dhul bay deganaayeen marka waxay ahayd in dee ogeysiis la siiyo waqti la siiyo oo waqti ay ku tabaabashaysan ku diyaar garoobaan la siiyo marka joogitaankooda iyo saaristooda waa masuuliyadii dawladda laakiin qaabka loo maray baa khaldanaa aragtidayda anigu waan ku raaxsanay arinka isaga waan ku raaxsanay anigu waan soo dhaweynaa anigu aad iyo aad baan soo dhaweynayaa boqolkiiba boqol waan soo dhaweynayaa 25 sanadood bay joogeen laascaanood 25 sanadood qof kaliya xariiq lagu dhuftay ma jiro intaasoo nin baa lagu dilay maadaama intaasoo nin lagu dilay iyagiina aan wax la yeelin waxay sheegayaan aayar 25 sanadood ay ka shaqaysanayeen dee taasoo aniga aragtidayda waa arrin ila xun ma aha tuhun baa nagalay tuhunkuna iyagu naga galay waa inaannu ogaanaa waxaana laynaya waayo intaasoo nin oo labeentii baa meesha lagu dilay isaaqna da waannu isdhaqan naqaan dad aanu isdhaqan naqaanna dee haddaannu isogaanana markii hore anigu waaba shakisanayne ta labaad waxaa weeye nin kale maxaa aaya looga saarado dee adduunka waxaa weeye qabiilba meel buu degaa 25 sanadood baan soo dhaweynay magaalada way qabsadeen oo ganacsigii bay qabsadeen oo xumaan kumaanu samayn wax aan wanaagsanayn waxaanu hayn kumaanu samayn ma ninka hadlayo ama soo hadli doono wax la yeelay sheega dadka waa la raraa oo qolo kasta markaynu dee Soomaali la wada yahay haddana Somaliland aanu nahay haddana Soomaali korka laga wada yahay dee qolo kasta deegaan bay leedahay deegaanka ay leedahay ayaa aayartoo dhalatay loo raray ceeb kale looma geysan dhibaato kale looma geysan foolxumo kale looma geysan qof kaliya xariiq laguma dhufan 25 sanadood bay joogeen annaga markaa rag badan baa nala ka laayay waxaanu hubsananaa waxaan wixii dalay inay iyaga yihiin in meel kale loo ka yimid waxaan u arkaa talaba wanaagsan oo wacan oo ay qaaday xukuumaddu waana ku masantahay madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyaha ciidanka booliska iyo dhammaan wasiirada ka qayb galay laascaanood way ku mahadsan yihiin in go'aan dawladeed la qaato dilka iyo dhaca iyo xumaanta iyo boobka iyo fusuqa ay ku wadaan laascaanood iyo ceerigaabo iyo burcaba in burcana lagu xigsiiyo ceerigaabo lagu xigsiiyo ayaan jeclahay sababtoo ay tahay nabadgelyo aanu ku shaqayn anagu maalin walba nin aararaya nin wax dilaya oo dadka leynaya soo garan oo waxay dhibaato ku hayaan shacbigeeni xaqaana nabadgelyo kuma hayaan halkana waxa ku hayaan nabadgelyo Puntland bay saas la ku sameeyeen oo wadii karkeen 20 loo dilayay oo dhacay dilka waa ku sameeyeen shabaab balay waxaan la garanayn marka dawladda Somaliland aad baan ugu bogaadinayaa waa talaba wanaagsan mar hore in la qaado taliyaha ciidanka booliska wasiirka arrimaha gudaha madaxweynaha talaba wanaagsan bay qaadeen waana ku saxsan yihiin qofka wadankiisa aanu dhalan ee dadka leynaya ee dhacaya ee boobaya qaar baa joogay 30 sanadood way garanayaan laascaanood inta hablihii reerkiina wada gursadeen ayay cala guruguru garanayaan dadka iyaga leynaya waxbad la dhacaya marka dhammaan waan bogaadinaynaa waan hambaleynaynaa madaxweyne iyo wasiir thank you shukran masantiin boqolkiiba Somaliland dadka aanu dhalan dhammaan ma hargeysa ma halka sheegaysaan hadeerba waa in laga saaraa madaxweyne kasta oo wadanka qabsada wuxuu ku khudbadeeyaa waxaan ka saaraya dadka wadanka u dhalan baa wadanka haysta dadku shaqo kuma hayaan ardaydii waxa ka shaqaynayaan huudheedka jaamacadaha ka soo baxay madaxweynaha waxaanu ka codsanaynaa oonu leenahay magaaladii dhaboolqee laga soo halgamay way cawlan tahay hadda qotaataa ka shaqaysataa Somaliland gebigeega qotaa ka shaqeeya Somaliland gebigeega hawida ka shaqeeya Somaliland gebigeega carabba ka shaqeysa
dadka mawaadinka ee u dhashay shaqooyinka la siiyo ha la maalgeliyo waddanka totally khalad baan u arkaa because waxa weeyaan meelaan Soomaaliland iyo dadkeedu qaxoontini ku joogin ma jiro meel aanay in dawool caalamka meel aanay ka joogin oo aanay qaxoonti ku jiro reviews ku joogin ma jiraan inaynu 40 milyan halkan masaariifta ka dayday daniino keentay inaynu cadaadino barashar la saaraa anigu khalad baan u arkaa shakhsiyan waxaan ka hadlayaa waa fikirkayga hadda ma fahamtay talabaad waxa weeye qof qaxoonti cidba wax ma yeelo baraka cidba wax ma yeelo bariiskiisu la dagaalamaya dadka islaynaya dawladdu waxay reason nooga dhigtay haddaan halka ku yar noqdo in dadkan la ascaanood ku leynaya ay dadkan yihiin halkan ku jiray aaraareed ah iyo magaranaysa taasi wax reason maaha qof bariiskiisu mashquuliyay xabadna ma qaato baastoolada ma haysto wuxuu ku iibsadana ma haysto xiniyaha iyo dhiiranaantana ma bale marka waxaanu leenahay totally dawladdu way ku khaldantay meel walba ummadda barakacii way joogtaaye arinta talaabadu uga qaado waxaan walaal u arkaa runtii waa talaabo fiican waxaan qabaa waa markii ugu horeysay ee dawladda Soomaaliland ay talaabo fiican ay qaado marka arinta aad iyo aad baan soo dhaweynaya waayo sababta gobolka Sool waxa dhacday baryahan dambe intii u dambeysay oo dhanba dhowrkii bilood u dambeeyay qolqolatooyin baa ka soconayay dilal baa ka dhacayay haddii loo arkay in dadkan ajaanibka ah ee magaalada ku sugan looga shakiyo amniga xaq bay xukuumaddu u leedahay inay ka saarto arintaas waa arrin aad iyo aad u fiican waxa kale oo nolol lahaa maadaama dadkan laga saaray meel ka la geeyay si aanay ugu soo noqon oo aanay magaalooyinka kale ee Soomaaliyeed Sool baan ka saaray gobolada kale u taga in gobolada kale inta jooga laftoodana la liiskareeyo imika gobol walba waa la liiskareyn karaa dadka ajaanibka jooga ama Itoobiya ha noqdaan ama reer Xamaan noqdaan waliba wakiil loo sameeyo oo la yiraahdo wakiil inta tiro koob lagu sameeyo lala xisaabtamo oo si ay cidda saayidka soo gashana way amnigeena saameyn ku yeelanaysa marka talaabada waxaan oran lahaa dawladdu aad iyo aad bay soo dhis waan ku garab taaganahay runtii waan soo dhaweynaa waxaan leenahay waan garabkiina inuu taagno arinta horta anigu waxaan u arkaa horta in cid la saaray qof haddii la saarayo nidaam loo maraa muhiim dawladduna waxaan u arkay in aan nidaam u marin laakiin ku qabo deemuhu waxa jirtay dad hooyooyin ku dhex umulay maxay gawaadidii oo aynu TV-yada ka daawanaynay waxa weeyaan anigu horta ma qaba qaabkay u saartay waxaana waa khalad waxaana khalad u tahay iyada laftirkeeda xataa may raacin shuruucda dhigata Soomaaliland haddii ay qofka raafayso waa in ogeysiis la siiyaa waa in waqti loo qabtaa waa in loo sheegaa maxay dadka noocaas xataa dad la raafay lama garan koonfur galbeed boqolaal qof ka soo jeeda sama laakiin waa la yiraahdaa dadka noocaas halka ka soo jeeda tirada intaas oo cisho waa inay ku baxaan haddii ku bixi waayaan waxaas ka dhalanaya inta midna may sameeyeen sharciga may raacin maxay ahayd immigrationka waxa weeyaan shuruudo dhigaya wuxuu dhigayaa in maxay wasiirka arrimaha gudaha soo saaro waqti ma garatay inta midna iyadoon sameeynin bay habeen inta dadkii maxay ahayd leeyahay waxba la idin ogeysiinaya ayaa gawadhi lagu guray waa khalad Soomaaliland cadaawad bay gashanaysaa dadka maxay ahayd Soomaaliya ka soo jeeda dadkaas waxa laga inaan dhibaato imika inagu haynin laakiin hadhow tolo inay dhibaato bilaabaan waa suurtagal waa maasanta marka adigu totally wad ka soo horjeedaa anigu totally waxaan uga soo horjeedaa war dadka hal la saaro ajaanibta marka hore ha loo aqoonsado qofku inuu ajnabi yahay waxa suurtagal qof 60kii Soomaaliland deganaa soo dastuurku ma oran 60kii wixii Soomaaliland deganaa ayaa muwaadiniina qofkaas hadduu degan yahay ka hor 60kii ma saan aqoonsanaya maxay inuu muwaadiniin kale waan aqoonsaday inuu horta ajnabi yahay waan kala saaraa muwaadin iyo ajnabi kadib markaan inta kala saaraan oranaya dadka noocaas astaamaha lihi muddada inta lagu wadanka kaga baxaan laakiin aanu kala garanaynba haddaan qof kasto madow Afrika xamar ku hadlayaan qabta ka hor inuu reer Soomaaliland yahay arinta waxaan u arkaa xukuumaddu iyo hay'adaheeda amnigu markay ku fashilmeen ammaankii dalka gaar ahaan ammaanka gobolka Sool gaar ahaan ka magaalada Laascaanood inay ku dambabasayaan ama ay ku dhoominayaan dadka la qafaalayaan ama magaalada ka tarxiilayaan mana aha wax sax si fasax sharciyana looma marin mana jirto go'aan ka soo baxay hay'adaha amniga oo dadka magaalada in lagaga saaro ay xukuumaddu soo saartay laakiin waxay ahayd arrin markii dhaliisho ay xukuumadda ku badatay ee ammaanka magaalada Laascaanood ay ku fashilantay ee arrinta ku dambabasayso mana jirto wax warbixin hay'adaha amnigu ay soo saareen oo ku saabsan amni darrada magaalada Laascaanood ka jirta inay dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ay ka dambeeyaan marka maadaama ay jirin warbixin ama information hay'adaha amniga ka yimid sabab dadkaas loo qafaalaa ama loo tarxiilaa maysan jirin mid labaad habka loo maray waxay ahayd hab yacni nidaamka dawliga iyo xeerka caalamiga ah ka soo horjeeda in dumar iyo caruur waxa weeye dumar waxa weeye xaamilooyin gawaarinta lagu goro magaalada laga saaro wax sharciyana ma ahayn wax nidaam darro bay ahayd waxa weeye hay'adaha amniguna iyo wasaaradda arrimaha gudaha markii ay ku fashilmeen wax ka qabashada ammaanka inay arrinta ku dambabasaan waxay ahayd wax aan yacni shaqaynayn weeye aqli sax ah uu ka taliyana ma
wallaahi arrinkan ku faraxsanay way arrinkaas waxa weeyaan dadka ka soo jeeda xukuumadda Soomaaliya waxa weey dadkaas waa dad dadkeenu kala Soomaaliya arrinkaas waxay ahaydun xukuumaddu inay tiraahdo arrinka muddo ay qabato kooban ay ku tiraahdo wadanka ka baxa oo sharciga sufaa soo saarto laakiin arigay ku qaldantay Soomaaliya waxa weey dadka inta garoonka Cabdi Bilaa Cabdi isku geysay ay ku ururisay markii gaari ku gurtay arrinkaas baa inagu yar qaldanaa laakiin xukuumaddu waxay ku saxsaneen inay ajaanibta iyo dadka magaalada u dhanay u eegday dadka qaraxyo siteen ka raafto laakiin sifaha ay martaa sifeero qaldanaha xukuumadda Soomaaliland mar walba way dadaalaysaa waxaan leenahay sifaha loo mariyo in la wanaajiyo waxaan u arkaa talaabo wanaagsan Soomaaliland qaaday wixii dalka xumaynaya dadka laynaya nabadgelyo xumo wada in laga saaro weeye waa waajibka Soomaaliland qabsatay weeyaan aad iyo aadna ugu taageersan niyo ama koonfurta ka soo jeedaan ama bariga ka soo jeedaan in Laascaanood amnigeeda khalkhal buu galay dilal qorsheysan baa ka dhacay marka waxyaabo badan oo loo arkay in amniga lagu hagaajinayba anigu waxaan qabaa in waan soo dhaweynaya maadaama oo amniga cid wax dilaysa la garan waayay yaa waan soo dhaweynaya wallahi shakhsiyan horta arrinka aad baan uga soo horjeedaa sababta ah waxa weeyaan dadkan Laascaanood shalay toole dawladdu ka saartay waa dad Soomaaliyeed laakiin marka doonayo in laga saaro wadanka cid sifa sharciya loo maraa waxa weeyaan qaabka humanitarian-kana kuma jirto in si kalisan toomada loo qabto laga saaro meeshii way dadka deegaanka u degan yihiin ganacsi bay ku leeyihiin dawladdu xaq u leedahay inay ogeysiiso marka hore dadkii inay magaalada ka baxaan ay ku diyaarsadaan marka hantidoodii iyo xoogina ku diyaarsadaan si uga baxaan laakiin afduubkan runtii waan ka soo horjeednaa laakiin dawladdu xaq bay u leedahay inay soo jeediso in marka wadanka cid aanu dhalan ay ka baxdo iyadoo sifo sharciga oo xeerka caalamiga ee marka muhaajiriinta loo marayo kale marka dawladdu wuxuu ku qaldan tahay in ummadii soo qabato marka ay xareyso dabeetana saarto taas ku soo horjeeda anigu Cabdiraxmaan shalay magaalada Laascaanood xukuumadda Soomaaliland waxay ka saartay dad ka soo jeeda koonfurta dalka Soomaaliya arrintaas aad aragtaa waxaan u arkaa xukuumaddu inay dariiqii saxda ay martay ee loo igmaday waayo xukuumadda waxaan u igmadnay inay nabadgelyada iyo dalka ammaankeena sugno Soomaa wixii dalka fadqaale ku keenaya xukuumaddu inay indho dheeraad u yeelato oo ay qabato oo xaqoodana waxay xaq u leeyihiin la siiyo ay qaataan weli aan wax ku dari lahaa kuwa halkayna la jooga caasimadda Hargeysa ee gobolada Soomaaliland oo dhan in la saaro kuwa jooga ku sii hadhayna sharci loo sameeyo lagu aqoonso qofkaas wuxuu yahay si amniga dalka loo sugo Soomaad garan laakiin ma jeceli in la dhibaateeyo caruurtooda laga daato amba xoolo in laga qaado wani si waysan loo amba bixiyaa laakiin amniga dawladda waa la sugaa laakiin sida wararku sheegayaan xukuumaddu ogeysiis sorowmaysiin dadkaasi magaalada laga saaray isla maalintii laga saaray dadkaasi loo yimid lagu magaalada ka baxa arrintaas sax ma kula muuqata xukuumaddu waxay u aragtaa marka emergency lagu qabto amar uga soo qaatay iyadu go'aanka iyada qaata laakiin cid kale go'aan ma weydiisto marka aragto wixii dambi lagu jiro waa in qabataa waxba laga yaabaa saacadaha gudaha in la fulin lahaa Maxamed Ismaaciil maxamedow sidoo aragtaa in xukuumadda Soomaaliland ay ka saarto dad koonfurta dalka Soomaaliya ka soo jeeda magaalada Laascaanood walataanu waxaan u arkaa yacni dadku haddii ay maatiin oo ay macasiin oo aanay dembi faraha kula jirin khalad baan u arkaa Soomaad garan qofka waxa ama dalka laga saari karaa ama se yacnihii dee la qaban karaa markuu dembi faraha kula jiro wixina waxa la yidhi waa dumar iyo carruur marka aan u arkaa khalad baan u arkaa xukuumadda Soomaaliland shalay magaalada Laascaanood waxay ka saartay dad ka soo jeeda koonfurta dalka Soomaaliya arrintaas aad aragtaa arrintaas sax baan u arkaa dawladdu tallaabooyinkii way qaataa waxay dareensan tahay bay tallaabada ku qaaday dawladdu hadduu shaqayn waday yaa shaqayni shaqadeedii bay qabsatay looguna tagi maayo wixii tallaabada arrimaha qaska wada oo dhan waa inay qabataa waana ku taageersannahay laakiin sida la sheegay dadkaas waxay maatay hooyooyin iyo carruur badan arrintaasi sax ma kula muuqata wuxuun baa soo hoos galay haddana wax soo hoos galin dumar iyo lama dhawaadeen wuxuun baa soo hoos galay iska soo saaran wax hoos galay ha soo saaran iyagu arrintaa waxaan u arkaa sax wax kastoo amniga khalkhal gelinaya waa in laga saaraa welibana Ethiopian-kana in lagu xijisiyaan qabaa fikradda waan soo dhaweynaya aad baan u soo dhaweynaya waxaan u arkaa in Soomaalida laga horeysay Afrika ka jecel Soomaaliya hal la saaro wixii Soomaaliya waa kuwii kuwa nala dhacay miyaa joogteen idinku miyaa garanaysaan shantii markaan la xareeyay sagaalkan la xareeyay hal la iska celiyo Soomaaliya Kenya inooga dhow Ethiopia inooga dhow ma doonayno Soomaaliya saaqaad caruurtiina yar oo islaam Laascaanood laga raro Hargeysa laga guro Burcana laga guro meel walba laga guro Soomaaliya maxay tahay miyaa meeskana Soomaaliya meeskana idinku looma baahna Soomaaliya wallaahi horta arrintaasi dhowr qodob baynu kala dhigaynaa
mar waxaanu ka kala dhigaynaa nidaamka loo fuliyey wax marna joogitaankooda marna amnigooda haddii aynu ka hadalno horta joogitaankooda marka horeba qalad ahayd waayo dawlad baynu sheeganaynaa nidaam dawladeed waa inay dadku ku soo galaan oo fiisa la siiyaa oo ay dalka ku joogaan si ay u lahaadaan tixraacooda hadhow hadday wax dhacaan meesha loo raacayo talabaadna waa qaabka loo mastaafuriyey anugu qaabka loo mastaafuriyey ma taageersani because waxa weeyaan dadka digniin la siiyo oo ay dad meheradalaa ku jiray ma garatay iyagoo dad lagu dhex dhuuman karo oo dadkan ay wax dila ama wax qarxiya ay u badan yihiin deegaankooda haddana marka loo baahdo waraysiyo looga baahdo ma kasaayo bay ku jawaabaan isma kala sheegaan sources wararka laga helo laga dhexeli maayo marka waxa la qaatay in gebigoodaba la isku mastaafuriyo ta saddexaadna waxa weeye horta marka horeba hay'adaha amniga meesha jooga qaladaad badan bay leeyihiin ma garatay waxaa jira nidaamyo badan oo lagu shaqeeyo oo ay ka mid yihiin surveillanceska sida dadka loo dabagalo waxaa jira nidaam la yidhaha security and incident information system oo lagu maamulo dhacdooyinka waxaa jira risk security management waxaasoo dhan baa ka horreeya horta intaan dadkaba la mastaafurin ma garatay wixiina meesha ma yaallaan ee dib u jeesiyo hor u jeesu baa la garanayaa waa taageersanahay dawladdu inay arrinkaa fuliso sababtoo ay tahay amniga haddii looga baqay dee waa ku qasbantahay dawladdu wixii kalaamkeeda inay yeesho dee waa soo dhaweynaya arrinkaanu shakhsi ahaan dadkaasi dad shacab ahayd mogti wax wanaagsan wixii dhib wada ee magaalada gudaha dhib ka wada maartay in laga qabto baa dadkan dad shacab oo shaqaysanayo oo bariska soo baxayan baa mogti marka waxaan leeyahay dawladda waxaan leeyahay dadkan saarsin aad iyo aad uga fiirsaa fiican mogti dadku isku dhex nool yihiin kuwa xaan ka tagay xagga way tagaan kuwa xaggana way yimaadaan way ka dhex shaqaystaan marka waxaan leeyahay waxaan leeyahay dadka aad iyo aad nagu naxariistaa waxa weeyaan dawladdu iyadaa waddankan mas-uulka waxalaali wixii ay garan weyday ee waddanka khalad ku keenayey amase maxay ahayd waxyeello ku ayaa dee dawladda loo xil saaray marka waxa ay dawladdu ku dhaqaaqday dee waxay waddanka u garan weyday weeyaan marka anu saasaan u arkaa dawladdu waxa ay dawladdu ku dhaqaaqday iyada ka mas-uuliyadda waddanka cabdirasaaq axmed aadan tayga iyo cabdiqani booska telefishinka caalamiga Sum News magaalada Hargeysa maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo macmiil ma ogtahay inaad ku guulaysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri dhul iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobaylo MiFi geel ari dahab lacag iyo internet bilaasha haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guulayste isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal internet iyo e-dahab kaga shubo e-dahab xidig 1 eber 1 4 gees nasiib wanaagsan